halkan oo ah dhabarka dambe xarunta dawladda hoose ee gobolka Banaadir waxa ka dhacay qarax ismiidaamin ah oo geystay qof waxyaabaha qarxa isku soo xiray lamaha ammaanka waxa ay sheegeen in ruuxan ay soo riideen kadibna halkan isku qarxiyay halkan waxa ku yaala goobo maqaaxiyo oo fara badan oo dadka deegaanka ay ku shaahiyaan dawladdu waxa ay sheegteen in 3 ruux ay ku geeriyootay laba kalena ay ku dhaawacmeen dadka dhaawacmay waxa loo qaaday goobaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho sidoo kale goobahan waxa soo buuxiyay ehlada dadka waxyeelada ay soo gaartay maalmihii dambe magaalada Muqdisho xaaladeeda amni ay soo hagaagaysay qaraxan ay ku soo aadaya xilli maalmihii dambe ammaanka magaalada Muqdisho ahaa mid hagaagsan maxamed ruuraayo warbaahinta goob joog Muqdisho shirkadda abuurka Seasad dadka badi wax beerto beeraha tabcanayo aan idin ballaarshay waxaan idinku baaqa abuur baahsan oo wacan tala bixin ya dheeraad dawal loo bogaayo buufinaysa cayayaan qalab buuxa oo runa barbarkaad ka eegtana ku xaqabeesha weliga waa shirkad kulansatay khubaro aqoon iyo waayarinimo u leh horumarinta iyo tayeenta abuurada dalka uu leeyahay sida masagada oo dhowr nooc ah galeyda digirta looska gabaldayaha sisinta iyo waanbaha Capsum waa nooc ka mid ah abuurada masagada shirkadda Seasad ay soo saarto waxaana uu noqday nooca masagada ugu fiican xagga u adkaysiga cimilada iyo cudurrada ku dhici kara masagada wuxuuna ka sareeyaa wax dhalka 30% marka la barbar dhigo abuurada kale ee suuqada yaala shirkadda abuurka Seasad waxay bixisaa tababaro ku saabsan sare u qaadida wax soo saarka beeraha ka ilaalinta iyo maareynta cudurrada aafiya dalagyada kala duwan ee beeraha dalagyada ku habboon cimilada xilliga jira iyo isticmaalka sunta iyo nafaqooyinka loo isticmaalo wax soo saarka dalagyada kala duwan ee beeraha iyadoo ay la kaashanayso shaybaarkeeda gaarka ah shirkadda waxay wada shaqayn dhow la leeyihiin iskaashitooyinka beeraha dalka waxay kaloo bixisaa wacyigelin talooyin ku aadan shirkadda waxay ka shaqaynaysaa dhammaan gobolada iyo degmooyinka dhulbeerashada ku habboon ee Soomaaliya xarumaheeda ugu waaweyn waa Baydhabo Kismaayo Jowhar iyo Muqdisho xarunta dhexe waxay ku taallaa wadada Maxamuud Xarbi degmada Boondheer ee magaalada Muqdisho Soomaaliya xarunta warshadana waa wadada Buulo Jameeco magaalada Baydhabo gobolka Baay dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wixii warbixin iyo faahfaahinta dheer kala xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada ku qoran